muuqaalkan waxaan rabaa inaan uga hadlo gudoomiyihii hore ee gobolka Gado Macalimu taariikhii uu dhigay inta degme ee gobolka Gado uu isu maray iyo waxyaabo fara badan oo aadan ogeyn muuqaalkan subscribe share like ku qabo si muuqaalada badan soo socdo ugu noqoto qofka ugu horeeya Macalimu waxa uu bedelay 6 gudoomiye degme ee gobolka Gado waxa uu harsanaa kaliya ceel waa qabal isaga ay inooga waramaya waa kan dadkii waxaan soo marnay degmooyin fara badan ee gobolka Gado hawlaha iyagana waxay ku aadanayeen xasilin iyo isku xirka maamulada saadogtiin waxaan ku guuleysanay ama dhib badan loo maray degmooyinka in la isku xiro degmooyinkii dhammaan waa la isku xiray waxaan noo dhiman oo kaliya ah ceel waaq oo idana qadka ku jirto oo dadkeeda ay taagan yihiin oo inay sugayaan insha Allah ta'ala hadii la raal ka noqdo ayadana waxaan jecelnahay isbuucan gudihiisa inaan tagna maamulka aan soo sameeyna saldhigga booliiska ciidanka joogin aan soo hagaajin halka markii ay marayso yaa hor istaagay in ceel waaq loo gudbo su'aashaas jawaabteeda waxaan u daayay daawadayaasha wixii markaa ka dambeeyay gudoomiyaha 2 jeer ayaa Muqdisho looga yeeray kadibna xilkii ayaa laga qaaday gudoomiyihii hore oo idaacadaha la hadlay ayaa ka hadlay cidda dhaqdhaqaaqa u diiday oo xanibtay waxaan ku xiriirnahay madaxda Muqdisho kaligeena ma ahan waa mas'uuliyiintii dhammaan ka soo jeediyay gobolka Gado siyaasiyiintii odayaashii dadka waxgaradka ah ee dhammaan gobolka ka soo jeediyay xildhibaanadii dadka iyaga dhammaan waxaa lagu hortaagan yahay garoonka aadan hadda ciidamada nisa waa saraakiisha hogaaminaysa ciidamada nisa nin la yiraahdo Cabdilaahi Kulanaha ra'iisul ka hortaagan sababta maxay tahay marka dadka waxa loo celinaya waa in dalkii doorasho u socda aysan dooranin sida hadda aniga aan dadka dhammaan aan istusnay xildhibaanada la dooranin dadka waxgarad weeyo waxa la socdaa dhammaan in xildhibaanada laga soo doorto waxa socda xildhibaanadii ka soo jeeday qaranka waxa socda odayaashii dhaqanka waxa socda siyaasiyiintii waxa socda wariyaashii waxa socda hooyooyinkii oo u socda gobolkii dhammaan waxa la go'aansaday ciidamada nidaamka hogaaminaya oo maxaa ku raadaya tareenka ka ah ninka Cabdilaahi Kulana ayaa uu go'aansaday inuu ku celiyo dadkii garoonka aadan hadda arrintaasna marka sax maaha mar suurtagelaysa haddana siyaasiyiintii waxaan diyaar u nahay inaan arrintaas dhabay ugu istaagna ugu hadalna sababtoo dalkii waxa taayada lagu wareejisay sulsaarihii markaad leedahay waan xiriiranahay ma magaalada Muqdisho ayaadan ka bixi karin mise meel kale oo lagu hayaa ayaa jirta maya